wax ka baro taariikhda Nabi Ismaaciil calayhi salaam qaybtii koowaad. Inta aanan gudagelin taariikhda Nabi Ismaaciil calayhi salaam waa inaan dib ugu laabanno taariikhdii Nabi Ibraahim calayhi salaam. Nabi Ibraahim calayhi salaam markii uu ka hijrooday Ciraaq ayaa waxa uu aaday Falastiin ayuu muddo ku nagaaday, kadibna isaga iyo xaaskiisa Saara way ka guureen Falastiin oo waxay aadeen Masar markii Fircoonkii xukumi jiray oo ahaa isaguna boqor gaal ah ayaa waxa uu samayn jiray dadka musaafiriinta ah oo soo gala Masar haddii qof dumar ah oo qurux badan ay la socoto oo ma ay ku jirto isaga ayaa kala bixi jiray, kadibna wuxuu ku dirsan jiray jaariyadihiisa iyo adoomadiisa qasrigiisa u jooga. Nabi Ibraahim calayhi salaam xaaskiisa Saara waxay ka mid ahayd dumarka xilligaa joogay ugu quruxda badnaa. Markii ay soo galeen Masar ayaa waxaa arkay sirdoonkii boqorka. Markay arkeen ayay intay qabteen iyada iyo Nabi Ibraahim calayhi salaam ayay isla markiiba say u sii wadeen waxay u geeyeen boqorkii. Nabi Ibraahim calayhi salaam sheekada boqorkaas horay ayuu u hayay. Saara ayuu la hadlay, wuxuu ku yiri haddii lagu weydiiyo maxaad isku tihiin waxaad tiraahdaa waa walaalkay, anna waxaan oranayaa waa walaashay. haddii ay dhahdo waa saygeyga ama isagu uu dhaho waa xaaskayga, Nabi Ibraahim calayhi salaam waa la dili lahaa, Saarana boqorka ayaa la wareegi lahaa. markii boqorka loo geeyay ayaa la weydiiyey maxaad isku tihiin, markaas waxay tiri waa walaalkay. waa la kaxeeyey Nabi Ibraahim calayhi salaam meel gaar ah la geeyey, iyadana qol gaar ah ayaa waxaa loo geeyey boqorka si uu xumaan ugu sameeyo. boqorkii markii uu soo galay Saara oo uu damcay inuu xumaan ku sameeyo ayaa Allah subxaanahu wa tacaala bariday oo Allah ka magan gashay. saa uu gacanta ugu soo taagayba Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo rogay shalal ama paralysis. gacantiisii oo dhan ayaa qalashay, xarakadii oo dhan ayuu iska waayay. waxaa la yidhahdaa carabkiisa keliya baa u soo haray meel dhaqdhaqaaqda. markaasuu intuu la hadlaybu wuxuu ku yidhi ilaahaaga ii bari, waxba kugu samayn maayo, waa ku sii daynayaa. markaasay tiri Allah subxaanahu wa tacaala u bariday oo tiri Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dulqaad waxaanaad saartay. markaasuu haddana mar labaad wuxuu damcay inuu dhinaceeda u soo dhaqaaqo oo xumaan uu ku sameeyo. markaasay haddana Allah subxaanahu wa tacaala ka bariday oo tiri ilaahay oo adaan kaa magan galay shartiisa. markaasaa haddana Allah subxaanahu wa tacaala sidii oo kale mar labaad uu u qalajiyey. markaasuu intuu la hadlay wuxuu ku yidhi waxba kugu samayn maayo ee isii daa. Allah subxaanahu wa tacaala ayay u bariday, waxay ku tiri ilaahay haddii uu run sheegayo ka dulqaad waxaana dul saartay oo sii daa. markiiba Allah subxaanahu wa tacaala xarakadiisii u soo ceshay. markaasuu intuu u yeeray shaqaalihiisiibu wuxuu ku yidhi iga kaxeeya, qof bini aadana iimaydan keenin, shaydaan baad ii keenteen. wuxuuna siiyey oo hadiid ahaan u siiyey addoon uu lahaa oo isaga u joogtay oo magaceeda la oran jiray Haajar. Saara waxay u hibaysay oo u hadiyeysay Haajar jaariyaddii iyada la soo siiyey Nabi Ibraahim calayhi salaam. Haajar Nabi Ibraahim calayhi salaam markii uu guursaday kadib waxay u dhashay Nabi Ismaaciil calayhi salaam, wuxuuna ku dhashay Nabi Ismaaciil Falastiin.